waa Maxamed Cabdi Afrax. Waxaan operation ku maray isbitaal Somali Sudanes adiga isbuuci hadda la soo dhaafay dhamaadkiisii. Alxamdulillah. Marka hore waxaa soo gaaray dhaawac wuxuu ahaa kubad anigoo ciyaarayo garoon salaxa dhanka jilibka dhaawac iga soo gaaray oo ACL-ka go'ay setkaas. Marka xitaa inta badan salaada fadhiyaan ku dukanayay. Marka waxaan arkay in qaliimo lagu sameynayo isbitaalkan Somali Sudanes. Alxamdulillah waan ka soo gaaray waqtigii loogu baahnayna waan imaaday. Operation-kii Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala waa ii fududeeyay. Qaliinkiina hadda waxaan ugu guuleystay alxamdulillah. Hadda waxaan sameynayaa recovery oo aan dib baan u soo kaban hayaa. Marka horena intii sunta igu jirtay maalmo 2 maalin camal kaliya waan jiifay. Inta kale tan waxaan ahaa qof oo la qaadayo la dhigayo. Laakiin maalintii saddexaad socodkaan bilaabay ilaa hadda waan socdaa oo aragtaan oo hadda birtaan aan ku socdaa. Alxamdulillah waxaan leeyahay wixii oo dhibaatadan oo kale ay haysato dhalinyarada sportska ciyaaro dadka siyaabaha kale ugu dhaawacmay oo dhanka jilibka ah insha Allah inay soo gaaraan isbitaalka. Maxaan ku raadinaa ka cabsan ka labalabeen daawo Ilaahay haayo. Inay Ilaahay tala saartaan waxa waaye qofka intuu yar yahaan fiican in uu daawo oo iska la gaaro. Mar haddii uu weynaado jilibkan waxa waaye dhibaatadeeda iska badan. Marka inta marba kabsamaysid oo jirkaada qabsan karo inaad ka faa'iidaystid fiican. Marka alxamdulillah marka hore tan dhaawacan waxa waaye isma dheheenin saana hadda noqonaysa. Haddana waxaan rajo ka leeyahay inaan mar labaad banooni ciyaaro insha Allah. Laakiin inaan is ilaaliyo oo nafteyda aan ka taxadiro si dhaawac mar kale uusan igu soo laabanin. Maxaa yeelay mar inaan dhaawacmo oo haddana sidii oo kale aan ku soo laabto aad ay u adag tahay. Marka insha Allah waxaan leeyahay dhalinyarada u baahan inay barnaamijkan sameeyaan operation-kan inay mar labaad si naftooda u ilaaliyaan haddii mar ku guuleystaan. Waxaan leeyahay soo dhawaada dhamaantiinba insha Allah.